waxaa maalintii shalay ahayd oo ku beegneyd 5 bisha May la asteeyay maalinta Soomaaliya doorashadeeda loo dareeri doono. Doorashada madaxweynaha ayaa 15 bisha May loo asteeyay. haddaba sanadkan waxaa u sharaxan in ka badan 50 musharaxiin oo doonaysa jagada ugu sarreysa dalka Soomaaliya inay qabtaan. waxaynu dul istaagi doonaa 5 musharaxiin oo ugu saameyn badan ee la isleeyahay mid kamid ah wuxuu noqon doonaa madaxweynaha 5 sano ee soo socota Soomaaliya maamuli doona. qofka koowaad ee ugu saameyn badan ayaa waxaa ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la is oran karo mar labaad uu qaban karaa jagada dalka u sarreysa. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee lagu tuunsan yahay dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan inuu aad u dhisan yahay, sidoo kale xildhibaano fara badan iyo saaxiibo badan inuu ku dhaxleeyahay ismaamul goboleedada iyo xildhibaanada dhawaan codka ridi doona. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale diblomaasiyadda caalamka iyo sidoo kale dawladaha caalamka ugu tuweyn saaxiibo dhow la ah. qofka koowaad ayuu noqon karaa ayaa la yidhi saameyn ahaan noqon kara madaxweynaha Soomaaliya 4 sano ee soo socota maamula. qofka labaad ee la filayo inuu noqon karo madaxweynaha Soomaaliya 4 sano ee soo socota ayaa waxa weeye madaxweynihii hore Soomaaliya u soo maamulay Sheekh Shariif ayaa la isdhihi karaa waa qofka labaad ee siyaasad ahaan ugu tuweyn inuu mar labaad madaxweyne noqdo. Sheekh Shariif ayaa la aaminsan yahay siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba sanadadii hore inuu sanadkan ka dhisan yahay, sidoo kale inuu saaxiibo dhow la yahay guddoonka golaha baarlamaanka shacabka ugu horeeyay Sheekh Aadan Madoobe iyo sidoo kale aqalka senatarada iyo ku-xigeenadiisa. Sheekh Shariif ayaa sidoo kale ismaamul goboleedada intooda ugu fara badan saaxiibo dhow la ah. qofka saddexaad ee saameynta ugu fara badan leh waa madaxweyne Xasan Sheekh oo dhawaan isaguna madaxweyne hore soo noqday. madaxweyne Xasan Sheekh ayaa siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan ka fiican sanadadii hore uu tartamayay, sidoo kale ismaamul goboleedada kuwa ugu fara badan iyo xildhibaanada dhawaan codka ridi doona gacanta ku haya ayay dadka Soomaaliya siyaasadooda falanqeeya dhaheen. qofka saddexaad ee ugu saameyn badan ayaa noqon kara madaxweyne Xasan Sheekh. qofka afraad ee siyaasad ahaan ugu dhisan noqon karana madaxweynaha Soomaaliya waa madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo isaguna siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba dhisan ayay dhaheen. sidoo kale wuxuu gacanta ku hayaa ismaamul goboleedada ugu tunweyn oo ay ka mid yihiin Jubbaland iyo Kiisa uu gacanta ku hayo iyo saaxiibo fara badan oo kale uu ku dhaxleeyahay dhanka Somaliland. madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni walow ay shaqaaqa kaga furan yihiin halkii dhawaan uu xilka ka hayay oo ah Puntland ayaa haddana waxaa la oran karaa qofka afraad ee kusoo bixi kara doorashada 4 sano ee soo socota uu noqon karaa. sidoo kale qofka shanaad ayaa ah ra'iisul wasaarihii dhawaan Soomaaliya soo maamulay Xasan Cali Khayre oo isaguna ah qofka shanaad ee la is oran karo siyaasad ahaan madaxweynuhu noqon karaa. Xasan Cali Khayre ayaa isagana dadka ugu saameyn badan ah isagoo saaxiibo fara badan iyo taageeraha shacabka haysta. sidoo kale dawladaha reer Yurub ayuu gacanta ku hayaa ay leeyihiin dhaqaale ahaan aad ayuu u dhisan yahay Xasan Cali Khayre. Xasan Cali Khayre ayaa sidoo kale xildhibaano fara badan ismaamul goboleedada ku leh, walow maalmihii u dambeeyay laga urinayay dhanka nabad iyo nolol iyo sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu u dhow yahay, haddana saameynta ugu fara badan ayuu leeyahay ayaa la oran karaa.